madaxweynaha qaato madaxtooyada ilaah ku dib madaxtooyada caasimada u qaato gogashii hore u qaatay wax kasta hore u qaato anaga wax ma calool ah madaxta liyaado ma u dulqaadan kara dhimashada gacan kurumiska ma fahanto si fiican marka maamulkaas cali guulow ayaan ku soo horjeednaa waxaan soo galnay jimada xaquuqdirka gobolka Hiiraan ayaan ka mid nahay waxaan soo galnay beledweyne saaki dagaal baa naga dhaxdhacay ciidankii meesha joogay oo cali guulow iyo dabageed taageerayay ilaahay xamdigii nimankii waan raacdaynay waxaan joognaa dhagaxjiis boondadii beledweyne aan joognaa waa u jeedaa dadweynaha meesha jooga waa u jeedaa biyaha caanaha buskudka xalwada rootiga wax kasta ayaan la garab taagan yahay maanan ogolin ninka la yiraahdo cali guulow in uu imaado beledweyne haddii uu imaado tan saaka dhacday taban usbaarkeeda ayaa dhacay saakay maxaa dhacay bal sharaxaad naga sii saakay dagaal ayaa dhacay waxaan soo galnay waxaan ka nimid meesha la yiraahdo burqan iyo meel yaalla ceelgaab baan ka nimid saakay salaada subaxda ayaan beelka soo galnay kuwii dawladulfiyaha u ahay dabageeda ayaan soo weeraray waan iska caabinay waan raacdaynay lama galay ayaan ku shareernay waxaan garab taagan walaalahanaga shicibkanaga dhalinyarada hooyooyinka odayaasha nabadoonaha waana la garab taagan yahay taageera loo wada yahay caanaha iyo biyaha naloo wadaa maamulka guulow wixii taageersan qori aaka iyo qori dabajaxi wax alla waxaan heena kala tagayna mana u على قولوه على قولوه دابا هرشابيله qorshihiina marka wuxuu yahay inaad halkan ku sii nagaataan aad sii joogtaan mise qorshe anaga wuxuu yahay anaga gobolkaan u dhalan joognay maamulkaas ilaa waa maamulka wax la isku darsaday waxa la isku darsadayna waxa la rabaa in la miisaanto cidii macnaha xuquuq badan xuquuqdooda la siiyo cidii waa la leeyahay waa xuquuq yar tahayna xuquuqdooda la siiyo gobol xun oo yar oo tuulada halgan lamid ah oo gobolka banaadir ka soo go'ay in uu qaato wixii dhamay madaxweynaha qaato madaxtooyada ilaah ku dib madaxtooyada caasimada u qaato gogashii hore u qaatay wax kasta hore u qaato anaga wax ma calool ah madaxweyne ku xigeen oo aman aan lahayn la yiraahdo qaatil yaado ma u dulqaadan kara dhimashada hadafkaniga marka wuxuu yahay gobolkaniga aan joognaa maamul degdeg oo isteed liyaado aan ku dhawaaqanaynaa aniga waxaan ahay saraakiishii ciidankaan ahay saraakiishii generaalihii kurti ayaa ilaa ku didin ayaa aan isla afgaranay in aan maamul ku dhawaaqno kana aan ka taqalusno saaka dagaalada gasheen maxaa qasaaraha dhinaciina idin soo gaaray saaka dagaalkaan galnay hal wiil baa naga dhaawamay Allah caafiyo hal wiil baa naga dhaawamay dhinaca kalena maxaa ka hortaa dhinaca kale intaan kale anigu kale dhaawac la jiiday labana dhaawac ay jiidanay waa jeeday wax kale oo dhimashaan xaqiijinay xal aan dagaal ahayn diyaar mu tihiin jabhadiina waan raadinay ilaa iyo muddo 6 sano aan 5 sano aan bariyootameynay hirshabelle aan bariyootameynay waxaan naga dhaaf walaalayaal ku haynay markii shacabka reer Hiiraan awalba ma ogolayn dhibaatada waxa wada ninkaas dabageeda wixii hor dhibaatada horna abuuray kana abuuray asagana hadda maamulku wada ma ogol ma taageersan maxaa marka dalbanaysaan oo hadafkiina ugu muhiimsan uu yahay dagaalamiisa waxa waaye nimankaas walaalahanaga inaan wax isku darsano ma diideen raalli aan ku nahay laakiin waxay la imaadeen waxaan raalli ku nahay maaha laakiin saacadan wixii ka dambeeyay waxaan rabnaa hadduu alidmo Hiiraan isteed maamul Hiiraan ku dhawaaqno anaga leena u madax banaana su'aal muhiim hadaa ku weydiiyo ciidanka aa wadataan waa ciidan aad u yar dawlad sidee ula dagaalami kartaan idinla tahay ciidanka aan wadana shacabka annaga waxa waaye inta hadda aan ku soo dagaalgalay lama rabo shacabka ayaa kurteena waa taageersan cid shacabku uu taageersan yahay guulisanaysa wadankan iska masha Allah saaka marka fariisimihii saakay aa soo gasheen xalaa soo gasheen mase saaka xoog kula wareegteen saaka runtii waa barigay soo galnay ceelgaal waqti oo ilaa 9 saac mal maas ayaa ka soo ruqaansanay salaada subaxeed waxaan qabsanay fadhiismahan hadda aan joogno
insha Allah ku guuleysanay wax barbalan male dhulkanaga aan joognaa hooyaalkanaga abayaalkanaga walaalahanaga aan joognaa wax dhibaataan qabno male ninkii marka diyaarad ku imaanaya ayaa dhib qabo intaas waan ku sheegay maxay idinku dhalisaa weerar ku soo qaadaan oo soo gashaan maadaama awl ceelgal joogteen waxaan ugu dhaliyay waxa imaanaya ninka xumaayo oo dabageedu doodal ku hay oo cali guud ay imaanaya cali guud gobolka ma imaan karo gobolka ragaas kale وولي هسه ولا لما يسمى لما كله هاي لكن أنت كان واحد أحسن على الجودة وضم فمو كل ما كره. سبعة. وقالش تاني أنا يا بوتا وقالش يدوك كل ما كره بس واحد كل ما كره. ما تنتهي. إن وساكي قوبيه دجالة ذيك العين الكاس جدا وبندة نوحوات اللي يقارن بند كوات. شعب كان وشعب يسقط صباحي إن أي كم مظاهرات أما درين كودي كم مجيان حالة مجانده. توكل نوحوات يقارن أي يقارن هالكن وقوي ساكي dagaaladu ay ku dhaxmareen ciidamada dawladda iyo kuwa la baxay jabhadda xaqadarka Saalax Buuram wuxuu ka mid yahay dhalinyarada magaalada wuxuu ku sugan yahay goobaha saaka lagu dagaalamay Saalaxay saaka maxaa halkan ka dhacay saaka waxa ka dhacay markii salaadii subax markii la dukaday ayaa ciidamadii Jarnaal Abuukar Xuud ayaa magaaladii soo galay markay ogaadeen inay kullay isla keeni waayeen Jarnaal Mukhtaar iyo ninka la yiraahdo Dabageed ay warkii isla fahmi waayeen markay isla fahmi waayeen ay warkii ay heleen inuu Cali Guudlaawe xoog ku imaanay magaalada Beledweyne oo ima karin magaalada Beledweyne Cali Guudlaawe kullay jarnaalkii ciidamadiisii waa aragtaan ilaa iyo diishay magaalada Beledweyne annagana kullay dadkii shacabkaan nahay dadkii diishay wax walba ayadoo Hirshabeelle ayadoo wax walba la isku darsan karo oo si nidaam la isku darsan karo waxa la rabaa ayadoo xoog ahayn in wax la isla maareeyo xoogi ka ay marka arrinkii marka xoogu isku bedelay xoogna reer Hiiraan yeeli maayaan waana ka soo horjeedaan waxaana looga soo horjeedaa si kala ma leh Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waa dad walaalo ah wax isku darsan karaan laakiin wixii la isku darsado waxa la rabaa in wax nidaama oo diishay waxa la rabaa la isku ogyahay reer Hiiraan ay ku wada dhan yihiin in loo sameeyo marka Cali Guudlaawe inuu saaka imaanaha janankii warkiisii maqleen jananka warkiisii ciidamadiisii waxay maqleen inuu diishay Cali Guudlaawe imaana ee dadkii shacabka marka waxa la sameeyay marka annaga waa soo baxnay Shabeellada Dhaxana waa ka soo jeednaa Hiiraanna waa nahay laakiin waxaan ogolnahay ayadoo wax la isla ogol yahay shacabka reer Hiiraan ogol yihiin inaan wada dhisano waxa oo wada dishay markaas wax la isku muuqdo hadda kullay waa yimideen ninka la yiraahdo Dabageed ninka la yiraahdo waa yimid ninka la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka oo dishay waa yimideen wax haba yaraatee dadkaas waa dad waxa la yiraahdo reer Hiiraana waxay u yimideen kullay waa wadakoodii wax haba yaraatee markay soo dagaayeen wax laga hor yimid ma jirin haddana waa wadakoodii la yiri haddana waxa xoog lagu sameeyay Jarnaal Mukhtaar inuu wasiirkii arrimaha gudaha inuu arrin xalliyo u yimid wuxuu isku dayay inuu xalliyo xaliskii waa laga sugu waayay marka waxa lagu sugu waayay dadkan waa dad walaalo ah waa Dabageed iyo asiga waa dad isla dhashay waa dad reer Hiiraana waa dad hal jifa ka soo wada joogo xawaadle ah waana dad maamulkii ku wada jiro waxa la rabaa marka ayagii haday isla fahmi waayeen maamulkiina dhagta u koreysay dhagtii markay u koreysay waxay ka war heleen inuu Jarnaal Mukhtaar iyo ninka la yiraahdo Dabageed inay isku warkiis la fahmi waayeen Jarnaal Xuudna ciidamadiisii wuxuu ka amray eelboorka iyo meesha la yiraahdo Ceelgaal magaalada Beledweyne ku sugan waa aragtaan saaka xabada ka dhacday dad waa ku dhinteen dad waa ku dhaawacmeen waxa la rabaa marka intaas oo dhan waxa sabab u ahaa waa dadkii Hirshabeelle xoog magaalada Beledweyne inay ku keenaan rabo asigaasina aabaleeda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الله شعب كريم بالوينة وحى سر المدي وعن دوننا وحى ما دام رهينا مكتوره أي مدحوينها أي لهاين وحنا هذا إن المدحوينه يدنا كلو ركتي dadka aragto waxay u soo waxaynaaya ay u soo isku soo baxaan waxa way
markay madaxweyne ku-xigeen ahaayeen xitaa waxay haasteen ay maamul ahaan u haasteen inay hiiraan ayadu hesha markaas inkastoo hiiraan iyo shabeellada dhexe ayna islaakayn hirshabeelle marka waxaan leeyahay dadka mataqaanaa mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka Soomaaliya in arrimahan ay faraha la soo gasho mataqaanaa xakirina ka jirta meeshan shacabka magaaladu waa mataqaanaa uu kacsan yahay wuxuu doonayaa mataqaanaa afkaartooda saxda ah waa in mataqaanaa ay awood qaybsigii hirshabeelle ay ku lahaayeen ay helaan ay xaq u lahaayeen ma ahan baryo ma ahan laakiin ma ahan si xaqaha loogu leeyahay si xaqa oo xaqa haddii la rabo in la iska riixo ma yeelayaan oo ma yeelayna shacabku ma yeelayaan in la duufiyo oo mataqaanaa xaqooda lagu tutunto oo lagu kor socdo ma yeelayaan wabillahi tawfiiq aniga hirshabeelle waa diidnay dadka shacab oo arkaysiin waxa waayeen dadkii ninkii haastaa horta dawladda dadka shacab oo soo baxay oo ciidankii saaki soo galay magaalada kurtis wix alaal wixii xaafadaha jooga dhamo waa garab cidii haasataana dawladda hirshabeelle wax la yiraahdo ma jiraan anigu waxaan nahay hiiraan aan reer hiiraan aan nahay waxa la isku darsadaa la yiri dadkan wax lama qaybsan kare xagga ku soo sameysano alla imaano wax la laga gadi karaa ma jiraan haba yaraatee waxaan heshiis ku ahayn la laga ma gadi karo amaatanta wax walba waa assalaamu calaykum waalaikum salaam dhammaantiin waa islaam dhalinyaro iyo rag iyo dumar saa u leediin waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka waxaan idiin sheegayaa saaki aroortii waxaan ku soo kacnay xambad iyo dhawqa rasaastoo dhacaysaan ku soo kacnay waxaana ka dabeynay kala yiraahdo dabageed waxaan ku leeyahay ummadda masaakiinta xambadda ka dub gobolkan dadweynaha ayaa dawlad ka ah waxaan kuu sheegaynaa inaad xambadda joojisid aad darada joojisid cali guud laaga aad haddaad doontid haddana saa u jeedaan jahamadii oo shacabkii isla socdo ayaa halkan jooga ayika ayaana waxaan kuu sheegay u dabeey doono marka waa salaamo dhamaantiin weli qaar ka mid ah dadka ayaa barinkooda muujinaya shacabka Soomaaliyeed waa salaamay aniga laakiin waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka mideeda kale hirshabeelle la dooni mayno ya wadankii oo qarrabay mana yeelayno dabageeda ku saare dabaqa rabaa inuu dhisto dabaq labaadoo rabaa balweyne inuu ku dhisto yeeli mayno aye aqli ma soconaysaa waa maya qalalaas hirshabeelle naga dhaaf hadduu naga dhaaf waayo ya gacanta iyo meesha doona inaan ku gelina asaan ku xabadaynayna ogaada ya ana dooni mayno baladku waxaan rabnaa xornimad shaqo fiican wax walba inaan ka shaqaysano wadankan daacada ku nahay wax walba inaan ku shaqaysano ku ganacsanaa rabnaa malaakiin mar alla keenabo qalalaas iyo dhibaato waxa dadka barakacinayo oo carrada ragayo waa hirshabeelle ha ka taga doonaada waxaas ha ka dhaafo wadanka qalalaas ma rabno anaga Soomaaliya shacabka reer hiiraan dana anaga dhaafo wala yeeli mayno waan u dignay hadda ka horna u sheegnay hadda ma u sheegnay mana yeelayno waa maadsanta kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka reer Beledweyne oo saaka isugu soo baxay magaalada Beledweyne oo dareenkooda muujinayay dagaalo saaka ka dhacay iyo reeritaankooda ku aadan hirshabeelle sida aad u jeedaan halkan waa buundada loo yaqaan buunda koowaad ama buundada Noorxawad waa goobihii saakay ay isku dagaaleen ciidamada dawladda iyo kuwa jabhadda ciidanka jabhadda aagan ayay ku sugan yihiin shacabka iyo ayaga aad bay iskugu dhaxmilmeen marka xaaladdan waa mid weli kacsan lama oga talaabooyinka xiga ee qaadi doonaan maamulka gobolka iyo dawladda Soomaaliya oo wasiirkeeda arrimaha gudaha ku sugan yahay magaalada Beledweyne maadaama Beledweyne ay wajahayso xaalad aad u cakiran muddo ku dhow hal bil tan iyo markii la doortay maamulka hirshabeelle ciidanka iyo shacabku ay isku dhex jiraan sida idin sheegay waxay ku sugan yihiin buundada Noorxawad ciidankan iyo shacabku waxay aad uga soo horjeedaan imaanshaha madaxweynaha hirshabeelle
cali guudlaawe oo la sheegay inuu beledweyne maanta ku soo wajahan yahay inkastoo sidaad u jeedaan aysan suurtagal ahayn imaanshihiisa maadaama wadooyinka muhiimka ah ay wada xiran yihiin ها باش شعبي قدموش ما ولي ما غير مع شعبك وكو فيلم بقى halkan waa kiliga dhagax jibis ama nuur xawaad biyahana u jeedaan waa biyihii ka haray fatahaadii webiga Shabeelle ee dhawaan uu ka sameeyay magaalada Beledweyne waxyaabaha dadka ay ku dhaliilayaan maamulka Hirshabeelle ay qayb ka tahay fatahaadda soo noqnoqotay maarayn la'aanta cabashooyinka ugu badan ee dadka muujinayaan ayay qayb ka tahay ciidanka jabhadda sida idin muuqato waa kuwa fariisimahooda ku sugan ayagii shacabka waa ay isdhex galeen oo idin soo gudbin doonaa wixii inta dheeraad ah haddii Allah awood leh uu ogolaado oo idin soo gudbin doonaa wixii ku soo kordhay insha Allah furmihii hore ee saaka dagaaladu ay ku dhaxmareen ciidamada dawladda iyo kuwa xaquudirirka ee uu hogaamiyo Generaal Xuut wixii soo kordhay